السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحاب تقروح بدن الدون كمال كستو كود جوكتا وحان الله هاي الحمد لله شكرا نمعة الإله إلهي أيان معدي سوق شكرنا الله أيان لينا هاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله وحان ربا هدي ليرا لكديغو إن وحير إنفانسيو إن هدا إي صورة قشو hooyooyinka quruxda badnaayo sida ugu qiimaha iyo qaayaha badan aan waxni fahansiyo iyo aabooyinka iyo dadka Soomaaliyeed anigu waxaan dadku ahay dadkayga alxamdulillah okay family friends leh cid wala islaam leh waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay sida aad ii saaratay madaxa korkiisa aniguna waxaan ku saartay madaxa korkiisa ileenay madaxa korkiisa meel ka sarreysay male waxaan rabaa inaan raali geliyo okay waa la soo wada wacay commentiyada waa arkay su'aashu waa arkay snapchat-ka waa arkay waan arkay waxa walaalayaalo aan in leeyahay horta awalan waxaan in leeyahay ilaahay ha inii gargaaro ilaahay rabbiga ee awoodda leh ee raxmaanka ah ee qaaf raxiimka ah ee raxmadiisa iyo naxariistiisa aynu isku jeclaanay oo ilaahay noo kasbay inaan is jeclaano is dhageysano is qadarino rabbigaas ayaan waxaan ku weydiinayaa inuu ku naxariisto adduunyo aakhiro sidaad iigu oyseen sidaad iigu danqateen sidaad ii wanaajiseen sidaad allah subxaana qaadirka markasta aad iigu alla baryaysaan wallaahi waa ka seexan waaye suma wallahi waa ka seexan waaye wardadaan i garanaynin wardadaan ehelkayga ahayn ma ay ooyayaan ehelkayga oo kaliix waxaa ooyaya dad aan i garanaynin commentigayga dad waxaa jira inkee xatii ka calool xumooda markii eray xun lay dhaho aniga okay taasna waxaan leeyahay cafis ayaad iga tahay haddii aad i fiirsatay waxun soo qortay haddii aad i fiirsatay aad saas tiri cafis iyo masaabax maxaa dhacay waxaa ku dhibaya aragayga waan ogsoonahay waxaa ku dhibaya hadalkayga waan ogsoonahay laakiin waxaad adigu moodaa in anigu aad adigu gacanta igu haysa maya aniga adig kuma amri karo gacan kuguma hayn karo ma ogaan karo wax kugu dhici doono wax kugu dhacay wax kugu imaan doono adigana sidoo kale ma ogid laakiin waxaad just istustay in markaan hadlo ajaayib naagtan labadeed like sida aad suubiso laakiin sidaas way ka duwan tahay sidaasi way ka duwan tahay sheekada anigu alxamdulillah waxaan ku barakoobay ducada waalidiinteyda waxaan ku barakoobay ducada ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi waxaan ku barakoobay islaamka iga naxay oo qiiraysan oo ila ooyay ee aan soo hor fariistay الله ayaa igu aadiyay wuxuuna igu xafiday ducada waalidka iyo walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed ay ii soo wada marayaan yaani familkayga meel kasta ay joogan iyo cid kasta oo aniga si gaar ah ii qiimeeyo ducadoodii baa heerkan kula soo hor fadhiyaa okay marraba marka inaan adigu kugu mashquulo adu waxa doonto dheh laakiin waxaad iga tihiin cafis Allah inta xad gudubtoo dhan waxaan ku leeyahay waad fasaxan tahay xaq Allah ayaad ka fasaxan tahay oo aniga ayaaba ku iriba ilaahayow adoontan aqligeedu uu tusay in ay xatii wax inta iga qaadi weysay suulka inka saatiri ilaahaw cafi aqligeeda ay tustay rabbiyow cafi waxaan ku cafinayaa sida aniga la ii cafiyo sida aniga rabbiga subxaana qaadirka culays kasta oo iigu saqiro ayaan adiguna dambiga aad iga gashay ama aad iigu aabiyotay aan kaaga cafinaya waxaan kala rabaa insha Allah walaalaha sharaftii ciisadii karaamada leh oo aan arkay subhanallah ee intaasoo kun ah Allah adduunyo aakhira Allah in sharfo laakiin waxaad ilowdeen faadma heer inay sii gaarto adduunka ay rabto inay barakada ka wada qayb qaataan adduunka ducada uga imaatee maxaa subscribe-ka inta kuno ay fiirsatay hadii aan subscribe heli lahaa soo qurux imaateen like is share sidoo kale waayo dad kalooni aqoonin ayaa ii sii duceyn lahaa
dad kale wanaagsan ayaa isii baran lahaa sidaad adiga iigu wanaagsantahay ayaan qofka kalena markaad ii share garayso uu iigu wanaagsanaan lahaa saaxiibey iyo markaad isiiso subscribe-ka oo u bato daawashadayda waxaan heli lahaa dad wanaagsan oo aad iyo aad ilaahay macquul ducadooda iiga dhigo marka waa mahadsantihiin waxaan rabaa insha Allah inaan kala saaro telefonka bes ma ku kala saari karo hadallada oo caruurta waa sax waxaa la ogolaaday 2 cunug waxaa wali maqan 5 cunug labadaas cunug oo la ogolaaday rabbil caalamiinka ayaa inoo soo saqray oo xaqii afka laga qabtay ayaa haddana ilaahay uu meel ka fitah waayo maxkamadda labaad waxay ansixisay ilmo ooyaaya sidaad aragteen ilmo waa waray ku haayo ilmo leh annaka hooyadiin iyo abiin inma rabaan iyo waxyaalo anigu aanan jecleen ilmahayga maadaama kilibyada daawanayaan ma rabi inaan sii calool xumay wixii dhaca inaan dib u sii raaca ma raba siday ayaku u dhaheen tabood ama waa tuurno siday u dhaheen ayaan rabaa inaan u tuuro wax walba waxaa ka fiican in aan hadda dadkan aad iigu soo duceysaan ilaahay ii soo qasbo ay ila shaqeeyaan oo ilaahay dee ii soo adeejiyo waddo fiican ay igula kulmaan ee dad ilaahay ii soo dir ay noqdaan bes iigu soo duceeye marka caruurtaas ayay maxkamadii ansixisay markii ay ansixisay waa kala qaadaya maxay tahay 2 cunug oo lagu ogolaaday bes dad kale ho markay ansixisay telefonka iska dhacay caaw meel kasta ilaa ii saacadii aan geeyay ilaa ii shalay ilaa ii maanta ma nasanin ilaa ii caawadas aan duubaya clipkan raali gelinta waxaan usoo duubay waa inay wax fahmaan waayo qof ma qancin karo madaxa ay xanuunayo qof si uma qancin karo dadka qaar ooyay marka labadan cunug Allah ayaa noo soo qasbay gabadhan 15 jirka ah iyo cunugan 14 jirka ah waxaa soo qasbay rabbigii shalay يعني inay hadlaan ay meeshan ku hadlaan ilaahaygi qasbay ayaa maanta noo soo qasbay xaqood inaa helo marka ayaga hadlay iyaga iscaawi caruurtan ayaga dhaheen anaka waa weynahay sidaad ku aragteena walaashay Faadimo Muuna soo gelisay si daawo Faadimo Muuna daawo ayada ku fasiraysa Swedishka iyo Soomaaliga anigu marka waxyaalaha muhiimkan kaaga fasiri doona hadda insha Allah oo markaan daawado marka waxay leeyihiin annagu waad nasirteen aaway wixii aad fiirinayseen iyo gurigeena inaad noo celinaysiin maxaad noo dhahdeen hooyadiin saas ayaa ku dhacday aabihiin in mar rabo maxaad familkeeniyo burbursanin aad u dhahdeen waa burbureen okay been ayaad noo sheegteen ma seexdo iskool ma dhigan karo ma cunto ma cuno xaaladaydu waa ma fiicno ayay dhaheen okay waxay kale dhaheen intaan aan la ekahay markii la yiri waryaa aamusnaya waxay dhaheen waan ila badbaadina markii lagu yiri waryaa intaan nala soo ekaysiye annagu waxaa nala soo ekaysiye gabadhaas janalkeeda ka fiirsada hadaad islaada waa isku amaane iga dheer Allah agtiisa amaanta Allah qofkii la arka wajigiisana amaanta loo quura ee qof waliba la iskama amaano qofkii u qalmaana la amaana waxay yiraahdeen xayigan iyo xoogan aan nahay iyo dadka annagu aan nahay iyo sidaan hadda aan dharkeeni dhogorteen ay yihiin heerkan waxaana gaarsiiyay waalidkeen ayaa wax ka fiican jira ayay dhaheen waa run waa may ma sha Allah ya xafido ilaahay inta islaamana awlaad Allah wa xafido awlaad kastana waxaan jeclaa ilaahay baari inuu uga dhigo inay tabaan ayaan ilaahay idinkiis waalidka ugu duceynaya marka ma ku noolaan karno looshaan beentad nagu haysaan waxaan u baahanahay waalidkeen waxaan nahay waalidkeena wax ku nahay intaan la egnahayno waalidkeena nala ekaysiye bas soo wuxuu sii raaciyay way fiicnaan lahayd ayuu yiri in aad ilmayow
waalidkiin ku xadgudbay aad aragtaan dhibaatada aan ku jirno waayo waxaad ogaan lahaydeen ayuu yiri waalidka qiimihiisa maasha Allah dadkoo dhan taasaa ka oysiisay heer waxaa la gaaray Salmaan insha Allah wuxuu noqon doonaa wiil aad ku faantaan ilaahay idinkiisa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda gaar ahaan Sweden degan inay u shidaan islaamo badan aniga iisoo sheer garayaan qaarkood anoo iyo aqooni ka sheekayaan cunuga yarka ah wuxuu dhahay ilmahana dhibaayo ha waayo anigaba gabadhayda yarta boodboodkeeda ayaa guriga dhan ku barakacay ha ilmana waa sidan marka cunugii laga aqli badiyo oo dhaqanku ka dhala ragmo wali dhaqan dhalaga ragmo ma gaari laaks cunugii laga aqli badiyo waa ku daay wadadaas oo maraya marka alxamdulillah wuxuu yiri kadeedka aan arkay in nolosha xun oo aragnay way fiicnaan lahayd ayuu yiri inay ilmo badan arkaan ilmayow waalidkii la jooga taas ayaan nigula talinaa waliba xatii wuu qarsan waa dhibkiisa oo wuxuu la sii hadlay caruurtii Sweden joogto dhan saasay marka dadkoo dhan maasha Allah ay yani ku qiiroodeen ay anigii la isaarnaa ay iga dageen oo macnihii ahayd ilmaheeda naagtaas waa weynaayeen warku waa run ama Faadimo ilmaha maysan dilin ninkaa dilay ama naagtan aroosyada ka taagneed ilmaheeda war maysan ka hayn wax lamida sidaas oo kala marka alxamdulillah shukr rabbil alamin ilaahay ayni xafido waa ay ka hadleen ilmahaas marka tusaalaha lagu helay afkooda ayaa ilaahay u soo qasbay dadkan maxkamadii marka baaritaan suubisay ila maxkamad saddexaad aan sugeynay war sharciga wadankan waxa ka shaqeeyo isfaari sharciga waxa ka shaqeeyo hadalka ilmaha in la dhageysto war tani ma dhageysateen ha war kuwan ooyayana ileen laba sharci safaari kama shaqeeyo hal sharciga ka shaqeeyo in la dhageysto caruurta cunugna inaan la dhageysan cunugna la dhageysto kama shaqeeyo bas muhiim waxa ah sax iyo qalad in la wada dhageysto war maxaad caruur ilmahan ooyaya gabadhan iyo wiilkan ooyaya maxaad u dhageysan weyseen sidee aan lagu ansixiyay dib ayaa la iska sii baar dib ayaa la isku qabsaday ilaahay ha ka shifay dib ayay ceebtoodii ka kashifmeen groupka hore dhan waa la tuuray dad cusub qeyrkooda Allah isoo waafajiyay way inabeen xatii kamuunka ama meesha aan joognay waxay ku dhaheen dadkan waalid ilmo la siin kara ma ahan dad nala shaqeynay ma ahan anakana waxaan ku haynaa I am ready wax kaste waa in la shaqeynayna maxaan suubinaa war heede sheekadii waxay dhaheen markii hore sidii ay Soomaalida warka Soomaalida nagu waasho kale waxa kamid ah ilmaha cadeen lagu hel lama qaato waxaas waa sheeko Soomaali 100 jeeraan kliibyo badan aan ugu duubay waa sheekada islaamahan ay meelaha la fadhiyaan isfiiga iyo aqligoodii yani sharci ayuu arkin isfiiga iyo sharciga iskaga darsoomay sheeko Soomaalidii aniga xatii been kuma sheega markii hore ay waaleen ay ugu qufulneed cadeen lagu haayo ilmana la iska ma qaadan karo waxaas ay ugu qufulneed allahay waxaas dhan waa laga baxay cunuga dhageysanayna anaka maqal iyo muuqaalba waa qaadana muuqaal hada aragna cunuga dhaawac ku yaalana adaa ku xiran adaa lagu dhibaateena adaa ku ganaaxan hadoo cunuga afkiisa aan maqalnana oo ka hadlana waa maqalna waa qaadana okay tiya marka alxamdulillah dalaalo ilaahay noo keenay oo ilmihi la kala saaraya marka ilmuhu waxay kala yihiin laba yar ayaa jirto labada yarka codsi male hadalna male abukaataha u doodi doono ilaahay soo barya in ay ilmaha yarka 5 jirka 4 jirka ay helaan abukaato daacada oo yiraahdo kamay maarmaan ilmaha waalidkood ilaa kuwaas cod male gabadhii sheekadan suubisay iyo wiil ay galaafatayna cod ayay leeyihiin isla ayadii haday ka noqoto xatii cid noo soo sheegaysa male cid xaaladay ku sugan tahay nooga warqabto male wala wiilkii oo ka noqday oo yiri gabadhan ayaa igu qasabtay dheh aabahay ayaa idilaanigana oo waraaqda ku qoran sida ilaahay la ogyahay marka alxamdulillah rajadu waa saas wiilka toddobaad ku soo haray wiilka toddobaad asaguna waa wiil yar oo xanuunsan ha ahaato saastay tahay hadii ilmaha la soo asagu waxa ma sheegin hadii ilmaha la soo celiyo ayaa la keenayaa ayay dhaheen oo asagu dib ma qabo barbaleena muusa sheegan
ما شاء الله ساسا مركا ukala qaaqaadsantahay kuwaan marka afkooda ilaahay ku caawiye inay hadlaan kuwaan aad leedihiin see lagugu ogolaaday ilmahaadii dhan allaha ku wada siiyo gabadhayda curadda iyo wiilkayga ilaahay baa ii ogolaaday afkooda ayay igu caawiyeen allaha ii deysto waana sugayaa insha allah dadka dhaheen rabadaanka inay kula rabadaanaan ayaan ilaahay ka baryaa waxayran kaaga sheekeynaya waa dhameyn rabaa filimkay soonkan soonkiisa ayaa iskuulka gabadhayda soontay marka dadkan 15ka anaka afkan ka tirsanaa ayakana dhamaade u tiriyaan hadda agoosto markay 15 ku dhamaato agoosto waa 8 agoosto ka bacdi 16 ay galaysaa ay leeyihiin haddana ilaa iyo 16 buuxsanto 16 ma u tiriyaan marka soonkii hore gabadhayda markay gashay 15kii ayay soontay anigay moodeen markii inaan ku qasbay waa soonkii kasii horeeyna Soomaaliya ay joogtay ma sha Allah ay yani ku soo soomeen caruurtu wiilku waa iska baranayay gabadhana sidoo kale way soo barteen ayagoon gaarin alxamdulillah Soomaaliya waa taqaanin anagoo alaan kala iskaga falaadi jirnay oo na gaarin marka dacwo macalimadii marka doodna markaan doodnaan ku yiri gabadhayda ma amro oo weydiitay inay furto anigu kuma xoogi anigu kuma qasbin bas ayadiya meel la galay ayadiya la tashkiiliyay waxay tiri bataatan ba aniga waa gaaray diinta islaamka waa ka gaaray xageeda waana Soomaaliya way googlahay galeen diinta islaamka ay arkeen intay soonka qofku ku waajibo saas miyaha safari sharcigeeda lama ogolo waxba igama gelin bay tiri marka alxamdulillah waa ugu duceynaya geesinimada waa ku amaanaya geesinimada ilaahay ha ii deysto intii muslim haystan allah u deysto waxaana ku leeyahay cisi iyo sharaf meel kasto joogtaan iigu noolaada ilaahay ha in sharfo waasaas kuwaas ayaga gacanta cadowga insha Allah wali la diray u soo duceey duca ku kaba shanta kalena Allah soo aruuriyo waa naga maqan yihiin ammaano oo ilaahay xafido horta Allah ka dhigo Allah nagu soo xafido salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh